adigu kugu soo orado ee dhahdo geesigayga alle geesigayga ayaa waxaan oo dhan ka hor imaanayo soo inay haysato geesi ay ku laabato tiir aysan dhaxan dareemin marka gabadha walaasha inta uga cabsi lahayd inta u qaadatid bud qaadatid kaba kula istaagtid shilmeedkeed ka labsatid oo ayadoo inay nooshahay inay nooleela kala ogyahay ka tagtid micno ma noqonayso taas sharafna ma ku noqonayso okay gabadha social media ku jirto way soo qaybis way soo qaracdo way soo fidheysatay haddana ayadoo wajiga ka burbursanay soo ooyeyso oo walaasha oo ooyeyso social media soo fidheysatay waliba adiga ah sabab u tahay ma sharafaataas no sharaf ma aha waxba isma dhaaftaan marka rago gabdhaha gacan inta u qaadi lahaydeen la saaxiiba u nasteexay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا channel كنا هانيمان وأنا قولا شحنان دجن هل كان قال صوتنا هو channel كنا هانيمان سر هذا خيارتنا أصحابتنا قالجة ما أنتنا برامج كنا وحويان أما برامج كنا ما توهم كسر قادم دورنا أريما كسر الله بدأ معنا وجودن به برها بالشدة وحنكبر أودونا ويل شيء إن الله سحر واللي بجبر حاسكي سهد أو أي كلا تجين أي سحرتي بالمحاكي جرا الرنتاس وأنا إسلا داون دونا وأنا إسلا فلقين دونا فلا أنا وحير إسلا داون ويل كان وحاولي هاي ويل كان وحصاد ديجا تيك توك جيسا أسقو القرآن سارايو أسقو وضد الصعود مرة البنو وحشيجا إن الله سحري وقدم بينتنا وحصو صار قبل أصور كذا قبل حاسكي سهرة هاد وحنا شيء وهي إن قبل السحر تي أو وقتك تي نين وح سحرة لنا ده لعق ديب أسجن وقتك نين كلاته أو وح سحرة نينك وح سحريان وده لعق ديب هدي عربت دينا سحر كافر فرا بلا نسلا داونو ونسلا فلقيدونا أرنتان محا كصح يا محا كبنه وكنا نسلا داونو أنا ورت أحبطن وقت كيستي جلاهنا إسكو مو بأوجباني ورت لكن وحكي شيء وحن هذا أنت أسوأ كيستي وحن سيدوت كيجو هو إن أي ما أنت كاجا حنو بدنانة زورت أنت أنا أسوأ كيسنا أنت ير إن هذا حتى وقت كيسكرين صوتها waxaan arkay in wanaagu meesha uu ka soo xumaan uu ka soo socdo meesha wanaag uu soo soconin sababtoo ah horta anu magacaagu saddex ma sheega hodan xuseen maxamed waaye ee Belgiumka ku nooshahay Arendooq sawirkaagan waa soo dhigaa to be honestly wax walba waa fashil aniga waayo markii hore waxaan islahaaniyo waa adkayso laakiin dhariga karkarka waxa ka keeno waxa waaye waa lastig markuu taagan yahay shalay waxaan adaa faraha la galay adkaysigeeda lahaa haddaad maanta u tagin aadan dhihin waxaan shalay adaaba shirkigan galay haddana madax la galay burburi anu waa wadayaa okay anu shalay horta ma aaminsaneen waxaan in saaxirkan iyo waqtigan inuu jiraba wataan intaan diiday quraan la isaaray horta markii koowaad quraan la isaaray way diideen way iga dhaxleen wax walba sheegeen way diideen inay iga baxaan way ugu soo noqdeen mar labaad dhacday in ay hadana quraan la isaaray way diideen inay baxaan way ugu soo laabteen mar saddexaad dhacday in quraan la isaaray way diideen way ugu soo noqdeen mar afraad dhacday in quraan la isaaray way diideen way ugu soo laabteen markii shanaad way markaan aan masaajidkan sheekh Marookaanka ee aan isku arkeeno waa mara Soomaali soo kala daalnay aan jirkeyga jug badan ay ku dhacday ilaa hadda xataa ay ku yaalo wixii oo dhan horta aan waxba iska bedelinba oo xanuunku igu sii badanay oo like ilaa hadda horta xataa meel fara badan ay iga yaalo oo shay igu dhacday oo mana iga tirtirmin waxaas waxba dhibaato horta لو كسر لعبان دونا عند كده حاجة سؤال شاسويدين ده مدرم حياتها سحر كا ده كم غير حقيقة سحر ما هاي ويل كان مسجنا هايو سو جين كده تكو كده حاط لا لكن سحر كا مملينا إنه وهذا لا صوته سحر وواح تفاعل أو ضد كل قسمه لكن واحد ضد كده حال لو إيش أما محل ده جينك so jinkana dadku ka dhaxad la shaydaan oo dadka isku ekeysiyo oo dadka isku diro oo dho hebel baan ahay ama hebla ahay meeshaas ka soo raacana way jirtaa sidoo kale dadka ka dhaxadasho oo qofka marka quraan saar ka dhaxadlo marka su'aasheeda waxay tahay jin maxaa la dhahaa sixirka dadka mu ka dhaxadla sixirka ma waxaad la oo dadka ku dhex jiro oo qofka dhex gala ma soo hawayaan wax tafaafulo qofka inta loo sameeyo waxanuunsado marka quraanka laga saarana ka bogsoodo sababtoo ay wax walba kalaamka Ilaahay ayaa ka weyn
soo sixir wuu jiraa ma jira ma dheheno laakiin aniga uma leeyahay sixirka inuu dadka dhex hadlo inaa qaldanahana waa laga yaabaa marka wuxuu leeyahay kaleeto mid kale jirto oo maxaa lahaa dadka oo isha ama uu jinka haayo ana dad badan oo saas waa la kulmay waan arkay kulay qof walba ama family kasta qof kamidana uu ku dhacaa isha ama maxaa lahaa jinka dadka marka quraanka laga saaro isha iyo jinka laga quraaminayana waa la garaacaa marka la garaaco masuun baa lagu garaacaa ama waxba uu lagu garaacaa sheeqaashu waxay sameeyaan garaacaan si uu jinkaas u qayliyo ama ishaas u qayliso ay dhahaan waan ka dhex baxeynaa ay meesha ku gubtaan dadkaas marka la garaacana wax calaamad ah jirkooda kama soo baxdo qofkii u maleysid hortaada lagu garaacayo maanta aad dhehaysid qofkaaneed wuu dhintay bas waaye wuu baaba'ay marka quraanka la saaro uu qofkaas soo fiicnaado wuxuu noqdaa sida qof hurdo ka soo kacay oo kaleeto korkiisa marka la fiiriyana wax calaamada kuma taalo sidoo kaleeto wiilkan wuxuu leeyahay waxa ugu yaala calaamadihii dadka quraanka isaaraya shiqaash iyo waxaas ay maxaa la dhahaa marka ay garaaceen calaamadihii ushi ma waxa suunkii wixii lagu garaacay iga soo baxay taasna aniga waxay leegtahay bihadinkana waa ogaan kartiin ama waa macnaha waa ka hadli kartiin waxaan rajeynayaa dad badan oo arrintaas la kulmay inay jiraan oo aniga kaliya aan ahayn waxaana laga yaabaa dadka qaarna inay kasoo baxdo u sheeg dadka qaarna aysan kasoo bixin laakiin aniga 90% inta qofood aan arkay ulka ma soo bixin soo marka aan sii dhageysanayna wiilkan wuxuu leeyahay laakiin waa wax حتى شيخنا أنا كمرة كان كوي ديري ويشة وحقول عنيه مصطفى وحن لوسو سمي ووح أدو يقول هاي مركنيه وأنا الآن كبعد وكود داري كنت في عن أوكي أقول هاي أنا كأجمع معنا ثانك يو هذا وما سنتاي سو مركا لايك شلي هرت أنا نفتي هرت عدة جعشة عدة كلو كلا تخانا الماء جعل عشان الجوبي غير عن جعل هاي وحول بس كهيست الحمد لله الناس كلا ذناها لكن shalay wataad horta walaasha mid ka weyneed watii yarkii Belgium kala dagay intay sixirtay intuu waa la rabay tareenki isku dhigay tareenka laga soo qabtay markii dambe meelaha u galisay dhahdeen anoo jaceelkaygu waxaan u sameeyay you know that soo marka waxa soo dhan waxaan aanu ba soo shacbi ximooyi waxyaabo badan oo dadka ka qarsoona jiro horta waa horkeena hadaa dhaho wallahi caadi loo ilmeenayo horta waxaan ku korkarin doono oo markii dambe heer ku gaarsiinaya inaan saaxir ku tagto tiraado waxaan joojiniyo sababtoo waxaan adaa madaxa ii soo galiyay ma fahanti soo marka waxani waa wax jiro horta waxa u baahan tahay adiga inaad horta quraanka barato aad ogaato waxana sidee wax wiilka waxa dhahay waxay leedahay wiilka inuu haysto family iyo ilmo hore u lahaa uu soo dayacay ka soo tagay gabadha madaxeeda uu soo tagay gabadhana marka ay kala tageen uu eedeenayo oo meel intuu soo fariistay leeyahay waa la sixray oo gabadhaas baa ay sixirtay oo dhibaato ii geysatay oo soo saan igu sameeyso nolosha iga riday sidoo kale waa kana hadana asagoo quraan la saarayo halkan ana soo saari doona ila daawan doonteen waxa quraan saarayo sheekh ولا بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام بسم الله الرحمن الرحيم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم marka sheekhu u tago quraan oo saaray wiilkan horta ani ahaan ra'yigayga qofka bini'aadamka ra'yigiisa uu qaldami karaa oo nasaxmi karaa ra'yi ahaanteeda anigu waxay ila tahay wiilkan ay tooyin oo noloshiisa ku qasaaray waliba aad ugu xun yahay inuu sida uu sheegay asaga reer buu lahaa guriyo lahaa ilmo lahaa reerkiisii gabadhii uu qaba xaaskiisii caruurtiisii oo soo dayacay uu ka soo tagay gabadha madaxeeda uu ka soo tagay gabadhii bay isguursadeen
calafku wuu dhamaadaa way isfahmi waayeen way kala tageen laakiin waxaa filowa ku noqotay inay gabadhan kale ka tagto reerkiisina oo soo burburiyo meel cad markuu soo istaagay intuu fikiray oo isdhahay soo adiga la qasaartay gabadhii horena way ka maarmantay nolosheedii bay sii wadataa awlaadeed iyo korsanaysa sidoo kale gabadhana way ka maarantay way ka tagtay gabadh Yurub joogto oo qorbo joogto gabar yar oo qurux badan ah sida aniga arkay waxay nin u sixrato waxaan macquul ahayn waxaan ra'yi maskaxda bini'aadanka aan gelin ma fahanteen qof la sixray hada nolol ka muuqato wiilkaas lagu sixrana ma jirto intuu meel soo istaago wuxuu ku leeyahay waxaan wiilkana ahay sidan oo quruxda badan waa kan hadana soo faanayo dhahayo nin qurux badan aan ahay look at me qof horta saasa uu egahay qof oo ma yihi oo qof aan nolosha ku kala dhamaanay nin ku dhaganaada ma yihi horta ma fahanteen noloshuna way ballaaran tahay qofka hadaa kala dhamaataan magaalka kala gelaysaan it's okay ma fahanteen nin dheehaas leehanahay anuu وعلي هذا ننكله طويل كلا الله صعد أمام ملينا ويل كلا سومالي إنه يهاي هل كان على صار وعارك دوتين ويل عرب إنه يها ملينا ولي هاي ويل كان على صعد سيديجي واي وسيديجي سوق على صور ويو هذا نوع حليه قبرك لانقرصنا وحرب قبرك لنا قرصنا مركل وحليه سحر كي جباب بيجي وجبر بري جورك يجيب عجي جورك وصعدي قبل أن قرصنا مركل السلام عليكم ما أنت محمد أو وقت وضع هذا هنا وسيدي سيدي وبير سيدي عصب سودوية وقت صور هذا هنا إن شاء الله لكن شال هرت وحد عيا وكلا دن ورمهين أو ومركب وحي هايان وكلا ودريمة وحوا أوجه أوجال ومتقنا إيش وحوا دريمة سيدي وحجنا لكن وحوا كما خبان كرو وهذين نقطة إن السوشيال ميديا أنت بدل مركب أنا يقول يوقع وكلا وحي مادان وكلا السوشيال ميديا هرت بدي أرد اللي سارة واللي ده وأنا واحد دوبتا كل واحد لو شغال سنة أنا هاي وحربان متقنا إيش هنا سماي ونربون ومركز أودي أن لها أود كبدن مركز غير عيسو مرة بدو استاذ ما هانيسي طبعا كل شرح حتى أنا ورمهين بدنا إلى سو حريري حتى خار بدنا حتى وقحنا قي وأنا هاي وحور مهين وقال ملهن واحد عادي حتى حالي إن أن شرب مركب فيديو جدوب حتى أنا وركهين أو أنا حالي ودن كور هلون إن أنا ديسكو نرشي اللي بكم فكر إن ديسكو هذا أو ديسكو أنت هذا كعيارة كل طبعا هرت درجي لابد إن نحكي بكتير نقضي أو مالنا إن يعني نار عادي يسعى مالنا عن عيب ونحفر دي هرت نين سوشيال ميديا جعلنا ما بهم سيد هم ضدك يخان وبي يخان إن مالك هذا أو سوف يستأود إذا ما بلهم إن قبيل كسي هذا هرت ما بكجرين لكن wiilkan wuxuu leeyahay waa lii wataa maba ogiba waxa dhacayo soo waa lii wada waxa soo dhexgalayo waa lii wada disco waa lii galaa club net clubantaya kabacdina fiidiyaashan soo duubo reeraha caayo qabiilada gabdhaha ay ka dhasheen gabadhii hore uu qabay iyo ay kala tageen iyo gabadha caruurta u dhashaba qabiiladoodii uu wax ka sheego caayo maxaa dhahaa siiba gabadhan u leeyahay hada way sixirto xaaskiisa ahayd midaan leeyahay wiilkaneeto ninka ragga ah waxa lagu yaqaanaa walaalka cali horta hada xanuunsan tahay ilaahay ku caafiyo mid kale tana familkiisa wiilkan wuxuu u baahan yahay quraan saar wax kale uma baahnid waxa u baahan tahay in quraan lagu saaro iyo waxa u baahan tahay in ilaahay ku unta isku xirtid marka clubka aadaysid waxa lagu qaatay inay baxdo masaajidka aadid oo ilaahay isku xirtid gabdhahana aad ka hartid soo nolol ay sameysteen way bixeen adiga noloshaada sameyso shalay ilaa calafku keentire maanta wax kala tagteen labada qofood isku risdaan wayna kala tagaan gabdhahana to nolol leeyahay noloshooda raacdeen mid meel soo fadhiisto ka hadlayso ma jirto soo sida aniga hadalka ku maqlana gurkan wadanku ay maacdo Holland kulli waxa u maleynaa inuu Holland joogo ma qanaade qorbaha markuu imaado waxa la dhahay gabar buu kursaday oo sharciga baa loo diiday sharci markii loo diiday gabar uu kursaday gabadhu kursadaa sharciga u qaatay caruure u dhashay soo seksego markuu noqday gabadhii reerkeeda ka furtay gabadhan kale u kursaday sidoo kale tan seksego noqday gabadhan reerkeedii baa ka furtay baa la dhahay wiilka kabacdina meel cad markuu soo istaagay ayuu dhahay no saamac qolmaha wuxuu go'aan ku gaaray inuu dhiiqeeyo gabadhii yaraad ay kala tageen oo asaga ilaahay calafkiis kugu daray soo qofka wax xanuunsada boqolaal xanuunsato qofka waa la sixir karaa boqolaal la sixir la qof intuu tago club tago oo
videos kasoo duubaya reeraha islaam dacaynaya gabar islaameed maanta dhan usoo taagana mar dhahay oo guursana mar dhahay saan ah wax badanaa ka qalda tan kaleetana waxaan leeyahay wiilkan ninka ragga waa ninka iskaga xaro dumarka aanan ka daba laalaado sababtoo ay gabadhan sawirkeeda meel soo dhigtay ceebaysid ceeb uma noqonaysa adiga ceeb u noqonay nin rag oo dhahayo hadda waxaaba aragnaaba waayadan soo batay raggii oo taagan oo dhahayo maxaa la dhahaa waana la sixray iyo waana la maxaa la dhahaa caayay iyo saabaana la yeelay iyo nin rag oo intuu meel soo istaaga dhahay waa la sixray quraadii lagu sixray sheekh watago quraan isaare waxaaga ka ku qarsanaada laakiin inta social media soo istaagto maalin walba aad gabar ku ijaafiso gabar ku xaysid xaaskaaga eheedo xilahaaga eheedo adiga sharaftaada eheeda aad ceebaysid taas raganimadaada wax u dhibaysaa ma fahamta soo hada guursanayso guurso hada wax qabsanayso qabso hada quraan isaar soo ninkan saad u qurux badan oo labisan oo isku diyaarinayo oo labisanaya taadi waxa ka qaldan qof xanuunsan oo sariir saaran noqon lahayd ama qof bahdilana noqon lahayd intuu soo labisto qurux badan ee magaaladiisa maray dhahay waa la isxray iyo wax xanuunsanaya waxaan sameynaa ma garanayo soo aniga waxba igu jira meeshaas wuxuu rabaa gabadhaas inuu ceebayo wiilkaas aniga ila muuqato marka walaalka caliye iskaga har waxaan sharaf kuma ahan soo marka wiilkan arintiisa meeshaas ayaan kusoo gabagabeynayna waxaan leeyahay masaajidka tag oo ilaha isku xir wax kale uma baahan tahay malaha noloshaada dib u dhiso shaqo tag oo magaalada dhinaca ka gal qofka sixirta malahane walaalka caliye shaqo tag oo magaalada dhinaca ka gal gabdhaha soo shaqo tagayso masaakiinta iska daa waxa kale oo barnaamijkeena kusoo qaadanayna maanta waxa weeye gabar waxa jira gabdho yaryar oo Soomaaliyeed oo maxaa la dhahaa maalmahan ka dhexwanayo baraha bulshada waliba ayagoo wajiga laga bedelay oo wajiga si xun looga dilay taasna waxaan rabaa inaan laba eray ka dhaho labadaas gabdhood oo loo kala magacaabo Queen of Djibouti gabar leeyahay oo walaalkeed uu garaacay oo wajiga si aad uga bedelay oo aan aad uga xumaaday ay gabadhan kale oo lagu magacaabo Siham Show oo ayadana sidoo kale walaalkeed uu garaacay wajiga iyo madaxaba uu aad uga garaacay daqran uu u geystay soo waxaan rabaa laba eray inaan ka dhaho labadaas eray ayaa waxay tahay mid waxaan ku dhaliilayaa wiilasha gabdhahan la dhashay oo walaalahood mid kale tan waxaan ku dhaliilayaa gabdhaha haddaan ku bilaabo mid gabadhan Siham maxaa lahaa haddaan ku bilaabo gabadhaneeto Queen of Djibouti waxay gabadhan soo gashay baraha bulshada waliba aad maalmo dhow waxay soo duubaysay fiidiyoyaal waliba iyadoo asturan iyadoo dhar iska caadi oo gabdhaha Soomaalida ay xiran yihiin fiidiyowga ugu dambeeyay oo ay soo dhigtay wuxuu ahaa iyadoo garan xiran madaxna u qaawan yahay oo niinkineeso jirkeeda inta badan ay banaan tahay walaalkeed ayaa qabtay uuna garaacay madaxa ayuuna waliba si xun uga garaacay soo mid gabadhaas ayaan ku leeyahay oo maxaan leeyahay marka mid gabadhan ku leeyahay Queen of Djibouti midna waxaan ku leeyahay Soomaalida mid kale tan waxaan ku leeyahay wiilka gabadhaas walaalkeed dhibaatada u geystay mid koowaad Soomaalidan ku hormaraya waxaan leeyahay Soomaaliya qalada ku leeyihiin gabdhaha Soomaaliyeed inay meel xun ama bohol xun ay ku dhacaan gabadhaas soo galayso way asturan tahay quraan ay akhrinaysaa wacdi dadku soo gudbinaysaa waxa laga yaabaa 5 qofood 6 qofood 10 qofood adi waxaan ku dhameyn inay daawato ay love u saarto gabadhaas soo galaysa qaawan oo maxaa la dhahaa niinkinaysa ama dadka caynayso aflagaadoonayso waxyaabo xun sameynayso ficilo xun sameynayso wax aan dhaqankeena iyo diinteena iyo maxaa la dhahaa sharafteena iyo cirdigeena aan u roonayn ku hadlayso waxa arkaysaa kumanaan qofood oo shaargareynayso boqolaal kun oo daawanayso loof u saarayso keep going hor u soo la dhahaa gabadha marka waxa lagu dhiirigelinayaa inay sharafteeda iyo sharafta familkeeda iyo sharafta walaalkeeda iyo sharafta reerkeeda ee burburiso iyo waliba anaga sharafteena sababtoo ay gabar Soomaaliyeed markay maanta baraha bulshada ay ka niyadkiso ama waxyaabo xun oo dhaqan xumo ay ka sameyso sawirkaas wuxuu noqonayaa sawir gabar Soomaaliyeed marka dadka ajnabiga ku daawanayaan ama hadeertaan sidii yaan dhaweed oo kale dagaalada ka socday social media sidii markii la dagaalamayo maxaa la dhahaa oromada oo Soomaalida iyo oromada ay isdagaalaysay waxa la iska soo gudbinaya sawiro foolxun iyo sawiro qurux badan waxa la isku soo dhijinaya gabdho qurux badan iyo gabdho foolxun sidoo kale tan gabadhan social media ku jirto ee xumaanta la soo gasho annageena matasha
berito soomaalida markay la dagaalaan sidii shalay iyo daraad dhacday oo kaleeto maalmihii lasoo dhaafay ee oromada iyo soomaalida isku dagaalayeen iyo soomaalida iyo isku dagaalayeen maxaa la dhahaa ishaq suudaaniyiinta sidaasoo kaleeto ayay keedkan ugu galaysaa berina waxay noqonayaan wax annaga nala ku caayo marka intaa dhiirigelin laheedeen gabar qaawan kulligeen rabood gareeya marka aragtiin gabar qaawan ama dhaqan xun ku hadlayso ama waxyaabo xun ku hadlayso oo social media ku jirto inta dhiirigelin laheedeen oo keep going aad dhihi laheedeen oo inta ku wada darsateen aad maxaa la dhahaa inta follow gareyseen laagta iyo shaartada iyo loofka aad u bedelin laheedeen oo commentiga keep going oo qurux badan tahay yeel ugu qori laheedeen rabood gareey oo qof daawataba haweyso marka waxaad dhihi lahaa iskaga taga oo ka baxa inta amaan u geli lahaydeen amaanteeda iyo caayadeedaba iska daaya markii ayadu waxay fiirsanaysaa bas inta boqol qofood oo wax kasoo bixisay dhiirigeliya gabadha qurux badan oo sharaf leh oo xijaaban oo diinta iyo dhaqanka iyo asturnaanta ka muuqdo dhiirigeliya gabadha xigmada iyo wanaagga social media lasoo fadhiisato gabdho badan oo waxaa jira gabyaha gabdho badan oo xigmad lasoo fadhiisto gabdho badan oo maxaa la dhahaa dhiirigelin lasoo fadhiisto waxaa jira gabdho badan waxyaabo qurux badan laga faa'iidaya sameeyo oo waxyaabo ama gabdhaha reeraha dhistay hadeertaan ay ka faa'iidayaan ama gabdhaha waxbarashada waxbaranaya ay ka faa'iidayaan ama gabdhaha rabo inay shaqaystaan ay ka faa'iidayaan waxaa jira gabdho fara badan oo noloshooda guul ka gaaray ama wadadii guusha ku socdo kuwaas aan dhiirigelino kuwaas aan maxaa la dhahaa wanaaga tusino si gabar walba ay wadadaas wanaag u soo gasho laakiin gabar walba wanaagsaneed marka laga hormariyo gabadha xumaanta faafinaysa gabar walba wanaagsan shaydaanka wuxuu leeyahay heblaayaba intaasii samaysay wayna ka daawasho badan tahay wayna ka dad badan tahay halkaasina soo galaya midna waxaa leeyahay wiilasha gabdhow walaalayaal is astura soo waxa asturnaantaada iyo sharaftaada kuwiisa xumaan ma ku helaysid nin walba wuu rabaa gabar qaawan inuu daawado uu jirkeeda daawado uu follow gareeyo uu la socdo laakiin ma rabo gabar qaawan inuu guursado ma jiro gabar qaawan oo sharaf lahayn oo qaylinayso oo caytamayso oo social media dharka iskaga dhex dhigtay oo hadallo xun ku hadlayso nin intuu u tago guursado geel iyo gooyo ka bixinayo ma jiro kii guursadana waa mid nolosha ka dhacay ama mid rabo maalmo kaliya inuu kugu meel gaaro oo kugu helo dad iyo in la barto oo asaga raadinayo inuu fahmaas adiga kugu noqdo berinu kaa tagaya oo ku tuuraya laakiin ninka adiga ku rabo waa ninka adiga ku asturto waa ninka adiga sharaftaada ilaaliyo waa adiga ninka sharaf ku yeelo waa adiga sharaftaada ninka sharaftiisa ka hormariyo waa ninka adiga kugu canaanto kugula qayliyo marka adiga jirkaaga meel yar ka muuqdo marka adiga hadallo xun aad baraha bulshada kaga hadashay ninkaas weeyaan ninka adiga ku jecel maaha ninka keep going ku dhaho ku qaawiyo kula soo istaaga adoo qaawan ama wax kula duuba adigoo qaawan ama hadallo xun adigoo dhehaysa kula jiibiyo kaas adiga danka ma laha wuu kugu meel gaaraya berinu kaa tagaya marka nin walba wuxuu rabaa walaashiis inay u asturnaato gabaray walaalay gacaliso asturnaan iyo sharaf waxaad ku weysay qaawanaasho iyo xumaan kuma helaysid gabdho aakhiradiinana u baqa adduunyadiinana u baqa sharaftiinana u baqa gurigaagana ugu waxaa tahay sharaftooda gabadhi qaawan aabaheed iyo walaalaheed ragga lama sheekaysan karaan hooyadadna sidoo kaleeto marka waxaa ogaataa adiga inaad tahay nal reer u daaran markuu ka damana mugdi noqonayo haddii sharaftaada ifto waxaa noqonaysaa tusaale qurux badan oo waalidkii dhalay iyo walaalihii la dhashaba sharaf u leh iyo qurux iyo nuur marka aad sharaftaada dhulka dhigtana waxay noqonaysaa gurigeena iyo guriga kasoo jeeday reerkaaga midnaalka ka damay oo mugdi ah oo laga xabsado soo marka adigoo iftiin noqon kartid adigoo dhalaal noqon kartid adigoo qurux noqon kartid ha iska dhigin mugdi noloshaada iyo nolosha familkaagana mugdi ha gelina soo mid waa taas wiilka waxaan leeyahay waxa kugu ceeb ah gabar walaasha ah inaa gacan u qaatid waxa kugu sii ceeb ah gabar walaasha ah inaa wejigeedii badasho gabadha markay dharka dhigato guur ma helayso guur sharaf leh qurux badan ma helayso markay dharka inta dhigato social media soo gasho sidoo kale gabadhana marka wejigeeda la bedelo ma helayso qurux soo gabdhihii facad ahay ayaad u jabisay markay gabadha walaasha wejiga ka garaacday wejiga madaxa ka garaacdana sidoo kaleeto maskaxdeeda ayaa wax gaari karaan gacanha u qaadin walaasha la fadhiiso
la hadal la sheekay u nasteexay wax u sheeg garabkeeda noqo la saaxiib qaladka intuu sadhicin waxaa ka horeeyo waxyaabo fara badan oo la sameeyo gabadhan qalad ay ku dhacdo soo maaha adiga sabab u ah hooyadii iyo aabihii dhalaa sabab u ah iyo walaalihii la dhashay sababta haddii leedahay saaxiib hooyadii saaxiib la tahay gabadha xumaan kuma dhacdo hadduu aabaheed ilaalinayo gabadha ee aabahii ka cabsato qabtana xumaan kuma dhacdo haddii walaal saaxiib leedahan intay sharafteeda iyada ka fikirto ka badan waxay ka fikiraysaa walaalkeed sharaftiisa laakiin haddii aad isku tihiin cadow labadiina waxaa laga yaabaa gabadhaas iyadoo adig kugu xumeynayso inay wax walba sameyso marka wiilow gabadha walaashaada ay maalintii dhalato haddii kaa weyn tahay hadday kaa yartaaba la saaxiib maalintii soo aqliyaysanayso oo u noqo garab iyo gaashaan dheh abaayo anaa garabkaaga taagan qofna kuguma xadgudbi karo qofka dhibkuu geysta aniga xabadka u tumo si ay saaxiibku la noqoto oo hadduu nin dhibaateeya ninkeeda ama ninay la sheekaysato ama ciyaal ay wadada ka marugayso intaasba ay adigu kugu soo oroodo ee dhahdo geesigayga allelehe geesigayga ayaa waxaan oo dhan ka hor imaanayo soo inay haysato geesi ay ku laabato tiir aysan dhaxan dareemin marka gabadha walaasha inta uga cabsi lahayd inta u qaadatid kaba kule istaagtid shulmeedkeed ka labsatid oo ayadoo inay nooshahay inay noolihii kala ogyahay ka tagtid micno ma noqonayso taas sharafna ma ku noqonayso okay gabadha social media ku jirto way soo qaabis way soo qaracdo way soo fidhaysatay haddana ayadoo waji ka burbursanay soo ooyeyso oo walaasha oo ooyeyso social media soo fidhaysatay waliba adiga aad sabab u tahay ma sharafaataas no sharaf ma aha waxba isma dhaaftaan marka rago gabdhaha gacan inta u qaadi lahaydeen la saaxiiba u nasteexay xumaal walba waa ka celi kartiin waa qaladkeena waxay ku dhaceen qaladkeena isku dayayna dib u saxdeen ulma ahayna ku saxdeen iyo kab iyo lug aad kula istaagteen iyo feri xaraantay no dib iskugu laabta tan kaleeto sihaam waxaan leeyahay sihaam mid ku qaladan tahay qalad gabadhaasayto horta walaalkeed buu qaldan yahay bataatanba inuu walaashiis dilo gacan u qaado sidoo kaleeto sidii wiilasha Soomaaliyeed oo dhan ayaan leeyahay waa ku qaldantiin inay gabar walaashiina gacan u qaadeen Siham Show ayadana waxay ku qaldan tahay gabar walaasheeda isbitaal ku jirto curadka hooyadeed oo la qalaayo inay intay meel soo istaagto tiraahdo aniga bashalay iyo iimaanayadana mu tagay waxba micno ma sameynayso cunuga koobaad hadii lagu qalaayo keeshan hadii lagu qalaayo kii hadii lagu qalaayo qofka walaalka waa adiga walaalka shalay hadayna ku imaanin tulse maanta adigoo tag garabkeeda istaag ayada intay iskarato ku imaado ku dhahaysa abaa raali ahaw waan kaa qaldanaa shalay inaan ku imaan waayo ayada xanuun dareemayso walaalaha ma aha kuwa kala caarsado walaalaha waxa waaye kuwa isku tanasulo kuwa isku naxariisto kuwa ayaga wax isku taro kuwa isgarab istaago kuwa uqdad iyo qubo midna isku qaadin so hada walaasha uqdad u qaadin ayadana uqdad ku qaado taas waxay noqonaysaa in adduunka waxba isku ahayn adduunyada wax la isku yahay aakhir wax la isku maahan walaasha shalay day qaldan dhamaatiin hadaba qaldan waa qalad walaalkaan uu qaldan yahay inuu gacan ku qaado walaashada kaaga danaaniyo soo marka waxaan leeyahay Siham iyo walaalkeed iyo walaasheedba dib isku galaabta adinka walaale heshiiya soo waxaan baraha bulshada aad kula jirto Siham iyo jooji walaalka dib u laabo Siham walaalkeed waxaan leeyahay gabadha walaasha ay raali gali adigana sidoo kale walaasha garab istaag marka barnaamijkeena halkaas ku soo gabagabeynaya meesha saan uga baxaya aad iyo aad ayuu noogu dheeraaday aad iyo aad ayuu mahadsantiin hada halkan noo la soo gaartay subscribe noo sar channelkeena assalamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh